nabiyullaahi muuse calayhi salaam wuxuu ku yidhi wiilkiisa gacanyaraha ahaay halkan kama zuulaayo ayuu yidhi ilaa aa ka gaaro labada badmaha ay ku kulmaan ama ilaa 80 sano aa ka socdo. Markii ay gaareen labada badmaha ay ku kulmaan waxay wateen malaay oo dambiil ku jiro. Malaaygi marka waxay u wateen raashin ahaan ayay u wateen. Malaaygi way hilmaameen marka labada badmaha ku kulmaan markay soo gaareen malaaygi waaba la hilmaamay. Markaasoo malaaygi waa baxsay wuxuu sameeyay badda dhexdeeda ayuu wuxuu ka sameysay jeex. meeshii uu mariyay waxay noqotay meel jeexan. Marka way dhaafeen meeshii u socdeen hay'ad markay dhaafeen lahaymaha ay u socdeen wuxuu ku yiri nabiyullaahi muuse calayhi salaam wiilkiisu ku yiri aatina qadaana qadadiina nookeen waxa kala kulanoo yiri safarkeena kan daal iyo dhibaato ayaa kala kulanay. Markaasuu wiilkii wuxuu ku yiri nabiyullaahi muuse ayuu ku yiri bal ka waranoo yiri muuse waqtiga halkaas ku soo hoyanay wuxuu yiri aniga malaaygu waa hilmaamay mana ilmaansiinin uu yiri ilaa shaydaan ma ahane ina xasuusto ayuu ilmaansiiyay. Marka wuxuu sameeyay malaaygi badda dhexdeeda ayuu wuxuu ka sameeyay arrin la yaab leh. Arrinta la yaabka leh marka maxay tahay waxay tahay malaaygan raashin ahaan ayaa loo watay. Malaaygi wuu noolaayay. Malaaygi marka dhulka ayuu mariyay markaasoo badda galiyay. Badda haddana markuu galiyay meeshii uu mariyay wuxuu ka sameeyay meel jeex marka nabiyullaahi muuse calayhi salaam asigoo rafaadsan oo gaajo hayso wiilka kuma qaylino maxaa uu ilaali weysay maxaa xoolaha u dayacda ma dhihin. nabiyullaahi muuse calayhi salaam wuu faraxay marka wuxuu yiri dalika ma kunna nabqi waaba arinta doonaynay oo arinta oo macnaha raadihiinay waayaba malaaygan baxsadkiisa waa arinta raadihiinay. Marka horaa loo soo yiri malaaygan qaad meeshii malaayga ku weysid ayuu ninkaas oo aqoonta u saaxiibka leh meehaas ayuu joogiyaa. Marka way soo noqdeen ileen marka hore way dhaafeen meeshii way soo noqdeen marka raadkoodii ku soo noqdeen ayagoo sahnihaayo. Markaas waxaa la imaada meeshii oo lagu hergalay oo buurta aheeda la imaaday. Markaas waxay heleen addoomadii Ilaahay kamid oo Ilaahay uu siiyay raxmad alla xaqiisa ka ahaatay cilmina alla xaqiisa laga baray. Marka nabiyullaahi muuse calayhi salaam ayaa ku yiri war muku soo raacaa si aan kaaga barto wuxuu Ilaahay ku bariyay oo hanuun marka ninkaanina waa nabiyullaahi khadir calayhi salaam. Markaasuu nabiyullaahi khadir wuxuu ku yiri muuse war muusow inaa iraacdid aniga ma awoodide niyo waxa waaye tartiib ayuu yiri. sidee ugu sabraysaa ayuu yiri wax aadan cilmi u lahaynin oo cilmi aadan ku koobin sidee ugu sabraysaa. nabiyullaahi muuse calayhi salaam ayaa ku yiri marka waa heli doontaa allah idankiis anigoo saabir mana kugu caasi dooni waxa ay amartid. qaybtan waa qaybtii koowaad oo nabiyullaahi muuse calayhi salaam iyo nabi khadir markay is arkeen. qaybta labaad waxa ku dhageysan doontaan nabiyullaahi muuse calayhi salaam wiilkii gacanyaraha u ahaa oo inta rafaada la soo maray halkuu ku dambeeyay. qaybta labaad ayaa ku maqli doontaan. daawada marka hore waxaa ka codsanaya muuqaalka inaad sii shirgaraysid leegtana aad ku qabatid page-kana follow aad dhahdid si mar walba ay kugu soo dhacaan waxyaabaha halkan ku soo gudbino.